السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow dhalinyarada oo xiliyadan oo kale aad kala socotaan idaacadda FBC waxaana barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa waxqabadka ururka dhalinyarada ee horumarinta magaalada Biki waxaana noo soo jeedinayso oo ka wareysanay warbixintaasi Muna Saciid oo kamid ah ururkaasi dhalinyarada ayaa waxay ka warbixinaysaa isla markaasina ay soo jeedinaysaa waxqabadkii dhinaca samafalka ee ururkaasi dhalinyarada ururka dhalinyarada horumarinta Bikiyeed wuxuu ka shaqeeyaa hawlaha waxbarashada hawlaha caafimaadka hawlaha maadaragtaan samafalka oo la kaashado hay'adaha kala duwan kaliya hadii ururku waxba qaban karin xataa waxa loo soo bandhigaa inta hawlaha fulinaysa halkan waa sanad dugsiyeedkii 2017 anagoo kaashanayna maamulka hay'adaha samafalka oo iyagu qayb kala duwan inaan ugu deeqnay arday danyara oo iyagu wax baranay inaan ma ahaynay sanad dugsiyeedkaasi ay ka qayb qaataan ay wax bartaan taasna waxay ku timiday isku imaatinkeena iyo midowga dhalinyaradeenna anagoo kaashanayna maadaragtaan ururada samafalka iyo waliba maamulkeena suuban waa sanad dugsiyeedka 2018 sidoo kale halkan aad arkaysaan waxaa laga fuliyay waayadoo ku jirno qaybtii barnaamijkii dhinaca waxbarashada waa madrasada waxaa ka furnay waaxda ICT-ga oo dhalinyaro kamid ah ama wiil dhalinyaro oo kamid ah dhalinyarteena جزاكم الله خير وسمفلكيسا قرصدي ugu deeqay 12 computer oo ay dhalinyartu wax ku baranayaan marka waa qol ICT loogu talagalay say abjilka soo kacayay ay teknoolojiyada ula jaan qaadaan waqtigan casriga waxa la jaan qaaday waa teknoolojiyada waxa ku xigay anagoo kaashanayna ururada kala duwan ee samafalka iyo waliba maamulka in caruurta danyarta aan barnaamijkan ka fulino ciidsiinta caruurta danyarta sidaad ogsoontihiin baa maanta magaalada Bikiyeed waxa ku sugan walaalaheen bulshadeedii ka timiday magaalada Garbaciis ama Barakac lama oran karo dhalinyarta ka timiday Garbaciis waa dhalinyartii Bikiyeed waa qayb ka ah barnaamijyadeena ma sha Allah ardayda caruurtii agoomaha ahayd maamul maxaa ururka oo kaashanaya waliba hay'adaha samafalka iyo maamulka iyo waliba dhalinyarada Biki dhex joogta ayaa iyaguna fuliyay qaybtan waa Gurmad Charity Organization waa urur aan ku codsanay inuu maadaragtaan dadka iyaga ama bulshada iyada Bikiyeed indhaha ama waaxda araga u baahan inay caawiyaan waxay halkaasi ku caawiyeen 125 qof oo indhaha loo jeexay oo dhakhtarka weyn lagu fuliyay waxaana waan uga mahad celinaynaa sidoo kale waxay ka qayb qaateen odxiyadii inay kaga qayb qaataan maalintii ciida dadka danyarta ah inay ugu deeqaan 7 lo'aad iyo waliba 50 neef oo ariya tabaarakallah كل هذه حلقة النجلة شوغان وانقوم هاد علينا ناقر بيستاقي بلانا عينو مديانو كديان وحا قيبكاها برنامج دي عن سنة كي قرشي سنة ديك بحين سينا كيغا قيب قابانو هو يدا يدلان كان يولي ببوكان كوباهن ديك شبيدا معمول كبكيات يولي بدلين ياربا أورور كوهرو مرينتا بكيات وإسكا كاشدي إن ديك شبيدا كفوليني مقالة بكيات iyadoo uu ku yaalo hospitaalkii weynaa ee magaalada Biki gobolka la oran karo hospitaalka ugu weyn ma sha Allah dhigshibidaasna waxa ka qayb qaatay dhalinyarada iyo waliba maamulka magaalada Bikiyeed halkan aad arkaysaan maanta waa dhagax dhig laakiin isbedelkii kadib dhagaxa markaan dhigno waa isbedelka soo baxay waa talaabooyinka aan ku guuleysanay talaabooyinka aan ku guuleysanay ganacsatada iyada magaalada Bikiyeed aabayaasheeda ayaa ka qayb qaatay howlgeeda marka hore hoteelkan idin tusinayay waa hoteelka Xaaji Diirane oo u dhow
qabalaha marka hore waxaan u aqaanay goobtana qabalihii laakiin xafiiska dowladda hoose agteeda ayuu ka dhisan yahay waa hoteelka maanta magaalada loogu soo hirto hoteelkan waxa weeyaan naftaada wax u qabso dadkaagana wax u qabo hotel loogu magac daray laakiin hoteelka waxaa la yidhahdaa xaaji xasan allah u naxariisto aabba xaaji xasan baan ugu magac darnay waxaa dhismihiisu waxaa cid kale oo caawimaad ka geysatay maaha dhalinyarta magaalada joogta ka bishaar qaata bishaarkiisa waxbaa laga jaraa kaasuu ka yimiday ka maalqabeenka hay-adaha samafalka ah marka barnaamijka loo soo bandhigo waxay ka qayb qaataan maasha allah 70% ayuu socdaa taasna waxay ka jawaabidii martidu markay magaalada timaado biki meel laga seexda ma jirto caladii darteed 2 sano gudaheed waxaan fulnay 2 hotel oo dhagax dhignay oo dhammaaday mid maanta waa 25% wuxuu maraya 70 oo kaas waxaa dhisay dhalinyarta iga hor muuqata cid ka maqan ma jirto waxaan idin leeyahay jazakallahu inta maqana waan bogaadinayaa maasha allah horta waxaa jirtay dhagax dhigoon bangi u dhex dhignay waaxdan maasha allah balse markii ay baaqatay walaalkeenii qaatay waxaa ka jawaabay gudoomiyaheena degmada iyo maamulkiisa maanta hoolka aan ku jirno ayaa goobtii loo bedelay cid kasta oo fikirkaa lahayd waan uga mahad celinaynaa ka dhalinyar ahaan maamulka waxaan leenahay waan aragnaa dadaalkiina iyo waxqabadkiina insha allah waan idinku bogaadinaynaa goobtan garoonkan aad arkaysaan maaha meel kale garoonkan waxaanu ka dhagax dhignay ayay ahayd dugsigeenii hoose ee ku yaalay garoonka weyn ee kubadda lagu ciyaari jiray waagii hore agtiisa waxaana fuliyey xaajid maxaa la yidhahdana diirane oo isagu maad aragtaanay horumarka magaalada ka socda qayb weyn ka ah maasha allah waxa kale oo jiray horumarada aan qabanay maasha allah ee dhalinyaradu isku tageegii ku timid biyaha maanta ay biki maalin dhaaf ay u helayso kaalin weyn bay ka qaadatay iyagoo kaashanaya dowladooda iyagoo kaashanaya maamulkooda iyagoo midaysan maanta magaaladii imise sano ka hor biyo laga guuray maanta alxamdulilah ha yaraato ha badnaato biyihii maanta way haysaa magaaladu taana waa wax la bogaadiyo insha allah dadaalada dambena waxqabadkeena waan sii wanaajin doonaa waxaa jiray haddaan usoo noqdo howlaha kale ee nadaafada magaalada bilicda ururka baabalixsaan iyagu qayb bay ka yihiin iyo ururkeena dhirbeeristii ballaadhneeda laga sameeyey qorshaheena ayuu ahaa maasha allah waa dhirbeeristii aan samaynay kuwkii aan soo afjarnay waqtigaasi la guddoonsiiyey dhalinyaradii ku guulaysatay waxaa jiray kalfadhi aan la yeelanay aabbayaasha magaalada qaar aabbayaashoo dhan lamaan kulmin laakiin intii waqtigu noo saamaxay ayaan kulan la yeelanay oon xaaladaha ka wareysanay waxyaabihii noo soo bandhigeenna gashi ahaan baan u qaadanay maantana tiyoo kale waan idinka fadhinaa doorkii hore waxaan gashi aan ka dhigano ood nagu garab istaagtay waan ku guulaysanay maantana waa la idinka rabaa dhinaca howlaha samafalka cid kasta oo maaragtaan dhalinyaro ah mas-uuliyad baa kaa saaran in maaragtaane ururada samafalka aad ku soo xidho ururkan oo uga faa'iideyno caruurta agoonta ah dadka danyarta ah iyo weliba maad aragtaane cid kasta oo u baahan garab istaag kana wuxuu ahaa wuxuu ka mid ahaa howlihii samafalka haddaba waxaa noo yaala qorshayaal furan oo aan weli soo xidhin cid kasta oo dhalinyaro ah waxaan leenahay qol aan isugu imano cid kasta oo dhalinyarana fikradooda way kusoo darsan karaan laakiin intii hadda ahaana la munaasibka noqotay maanta ma soo bandhigayno waxaa ka mid ah sanadkan 3 qorshe ayaa noo yaala annagoo uga faa'iidaysanayna dhinaca maamulka degmada Gootaabike oo sanadka qorshaha sanad miisaaniyadka 2018 rabna in loogu daro oo gashi ahaan loo qaato waxaa ka mid ah green area oo ilaa 2 hektaar ku fadhida si dadkeenu ay u bartaan dhinaca wax soo saarka aan uga faa'iidaysano hawlaha wax soo saarka laakiin goobta weli maan cayimin laakiin barnaamijkaasi sanadkan hadduu ilaahay idhaahdo waxaan rajaynaynaa inuu hirgalo cagaarinta deegaanka ama goob cagaaran oo loogu magac daray maad aragtaanay itus ama tusiya ayaan ugu magac darnay taana waxay noqonaysaa goob dhalinyarada
iyo weliba bulshadu ay wax ka bartaan annagoo adeegsanayna goob kasta ay khusayso kulliyadaha beeraha cid kasta ay khusayso annagoo kaashanayna maamulkeena iyo weliba dhalinyaradu ayaan qorsheynay goobtan aad arkaysaan waa xaaji xasan waa hoteelkii aan markii dhagax dhignay 70% ayuu socdaa waa 21 qol iyo 6 qol oo VIP-ga martida ugu talagalnay waxaana loogu talagalay martidu inay deemaad aragtaa inay naga wayn meel ay ku joogto ay seexato kaana insha Allah sanadkan in la dhammaystiro ayaan qorsheynay oo aan isla qaadanay waan leedinka baahan yahay dhalinyaro maanta hoolkan aad ku sugan tihiin inaad kaalintiina ka qaadataan kan waa qorshaha aan rabno inaan sanadkan dhagax dhigno oo ah library goob wax akhrisa waa inaan dib u soo noolayno waxbarashadii aqoontii tayadii lagu yaqaanay magaalada Bikiyeel ardaydeedii horumarsaneed library-gan ayaan qorshaha noogu jira sanadkan hadduu Ilaahay idaado fikirada cid kastoo haysa fikirka qolka way ku soo gudbin karaan oo wali fikiradu ma ina xidhimin kaas ayaa ugu dambeeya oo saddexda qorshe ayaa maanta sanadkan inoo yaala dhegeystayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii dhalinyarada aan ku soo qaabadnay waxqabadka dhalinyarada magaalada Biki oo ka shaqeeya howlaha samafalka iyo sidoo kale howlaha kale horumarineed intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono guudaan akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudanow intaas ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo amaana Allah